وريد جايسو هذا معناها يا ريقو ميس ويلي هو أنا ما أنا قرانينه ما وحوا عالم بعتهاي ما أنت أنا سارقناه قرما جعل كيو ما شاء درين كيو كوجو ما هي عاشقة منا وسؤالي وهذه كان مشغولة هالجمامي أتاي من تدي حرني مدون قم يستها مذوقيو كوا مري عدوقيو ما نفتيه راتاي ما لها بكسر أرتام من مدونكم أشرو مالنتي مساردو أي مبارك ريدين أنت التحرير سكوير مرميين أنا قام نودي من تحت يدا وداعي مرقانك يا بين هورنا مردوف قاده هون عنا ملا سبحان الله بيقصدوا كان مدح ديك غفر إيجوا مريم من مدوي لهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشا الصوماليات halkan ayaan waxaan leenahay si wada jir ah nabad iyo caafimaad noogu waara meel walba oo dunida dacaladeed kaga sugan tihiin kuna soo dhawaada channelkiina garashada sareysa naqbay kugu qarqaaday gablan badownimooy wixii kala godad ninkeedii way ku riday godad ninkeedii waa hal ku dhiga channelkan saaxiibayaal subscribe-ta inaad la dhaafin ayaan rajaynaynaa oo aad like-tii share-tana ku dadaashaan niyoba mashiro waxaan la yaabay filina waxa arkaysa waxa daawanaysa kumanaankaas inay subscribe iska dhahaan maxaa oo gudbayaan horta soo dhaw thank you ma santahay waxaa jira xilli waxaan iskaga jiraa cadsigu oo firfircoon yahay sax aad bulshada dhexdeeda ugu firfircoon yahay cadsiga iyo marka dadku la yaab ma laha ma nu cudur daarina laakiin waxaan inta samayn kartaan noo sameey si aad noo dhiirigelisaan sababtoo ah shidaalkan ku shaqeynaa waa dhiirigelintiina hanka rajada ugu weyn aniga waxay gashay markaan saddex muuqaal baan u maleynayaa video channelkeena garashada sareysa oo soo galay daawadayaasha aad baan ugu mahadcelinayaa wayna rajo geliseen hore noo sii wadan idin leenahay meeshaadna gaarsiisaan baan ku istaagaynaa adinkuna allah idin dhowro idinkana allah idin xafido wakaa waa tahay abwaani bal barnaamijkan ayaan bilaabeynaa oo aan channelkan kusoo kordhinayno abwaan bashiir iyo waayihiisii ayaa la yiraahdaa suugaan fara badan oo abwaanku u tiriyey riwaayado fara badan oo abwaanku sameeyey gabayo fara badan oo abwaanku leeyahay jiro bal inaan soo faagfaagno oon kaydka ka soo saarno bulshada Soomaaliyeedna aan la wadaagno wax badan oo aydan xog ka haynin bal inaan idin bayaanino si aad xog fiican uga heshaan arrimaha qaarkood oo jilcin u baahanna gabayada qaarkood waad ogtihiin suugaanta maadaama la adeegsado erayadii miiga iyo erayadii hore qaarkood waxaa suurtagalay inay aad u adag yihiin fahamkooda abwaanka ayaa diyaar u ah inuu idin jilciyo erayadaas wax badanna aad ka fahamtaan maadaama channelkan ciwaanka iyo magaca uu yahayba garashada sareyso oo loogu talagalay kor u qaadida iyo kobcinta garaadka bulshada Soomaaliyeed haddaba waxaan jecelnahay in barnaamijkaas halkan aan ku soo kordhino wax badan ayaad ka bogan doontaan waxaan maanta jecelnahay bal inaan ku bilaawno dhanka riwaayadaha abwaan bashiir waxaa jira riwaayad aad u qiimo badan riwaayadaha kuwana waa madadaalo gabayo iyo geeraaro iyo wax walba laga heli karo kuwana waxay iska ahaayeen xilligii lagu jiray muxuu ahaa halganka marka waxaan jecelnahay bal riwaayad waxaa ku jirto channel Europe ay ku qoran tahay riwaayadaas bal waxay ahayd bismillahir rahmanir rahim riwaayad horta markaad sameynayso waxaad ka hadlo haddaad halgan ka hadlayso haddaad caadi u hadlayso haddaad sheegayso waxaan riwaayadaad ka samaysay waxa xaqiiqad u yahay waxa laga rabaa horta inaad bulshada waxay ka koobnayd noocyada ka koobnayd oo dhan inaad laga dhaxelo yar laga dhaxelo marka riwaayadan waxa la yiraahdaa seefta xornimo doon way seeto furunta iyadan halgankii ku jirtay laakiin waxa ku jira noloshii caadiga ahayd ee bulshada yaa ku jira jacaylkii baa ku jira waxa ku jira kaasa fiican halgamaagii baa ku jira waxa ku jira kuwa aan naqaaniday qodiga oo kaaba kalkaaliyaasha gumaystaha waxa ku jira shacabkii caadiga ahaa oo iska noole dadka qaar dhihi jiray laakiin aan jeclaysanin galbadaas waxa ku jira dad taageero iska adugu oo qalbiga u ruuxa halganka ka jecel laakiin sa aan dhaqdhaqaaq lahayn marka awaan intii hadda ka wada hadli kara inta badan ka hadasho marka adab saalan ku soo qaado riwaayada la yiraahdo seefta xornimo doon way seefta furantay muuqaal caadi oo arrimaha bulshada dhexdeeda iyo halgankii wada socdo iskala baa jira muuqaalka wuxuu ahaa nin Cabdicasiis la dhihi jiray halka man ka salaamay dhamaan kooxda dhanba riwaayada ka qayb qaadatay
gaar waxaan u salaamaya xubnaha anada ka sheekayn doono Cabdicasiis iyo Taajiro oo kale way dabanada arki doonaan daawadayaashuna sheeka dhex mareysay Cabdicasiis waa dhalinyarada wuxuu matalay qayb bulshada ee waliba balwada iska isticmaasha ee waxeedu uusan aadka u sii halgankii waxaan aan u lahayn ma kala jecleen in la xoroobin kala aan kala jecleen biska aha nin aad u warbadan uu ahaa Taajirna gabadh qadiyadan u go'go'day baa sax wadu isu taagay markoo isagu wuxuu leeyahay haweenkii bariyahan tus bal dhahaa waa daad dhahdo way ku raac adigu buleeyahay war dheer oo gabadhna ay dhibsanayso kelmadaas uu ugu yeeray waa canaanayso ilaa ma taraafik baa tahaysno kadib suugaanti ya caadi loogu wada hadlayaa marka sax waxay leedahay war wadiga tagtayna ii tahay gacanta ma taraafik baa tahay haye markaas uu leeyahay taraafik ma ihi laakiin hadda taraafik ma ihi hadda waxay leedahay mojometer baa too jidadka cabirtaa haye waxay leeyahay wuxuu leeyahay injineer weyn baan ahay laakiin hadda iska maan cabirayna bal soo jeeso waxay leedahay kuma garanaya maxaad markaas uu leeyahay meedan buugid iskuulada ku dhigan buuga af Soomaaliya ka hadla haye meedan taariikhda ku arkin yuu leeyahay xariifkan iyadoo waxay leedahay war taariikhda sayidkii iyo halgamayaashii bay tirinaysaa xaawataakii ku soo arkay sax taada maxay ahayd markaas taariikhda hore jaahiliyadda inaga daayo tan casriga miyadan warkayn ha adigu isu ka sheeg bay leedahay wuxuu leeyahay magacayga oo gaaban waa maatadaadiis miigaag mulaax dawlis marakaso kasar ma dhaxida kujiid iyo maqal mutuux iyo sariid masiibiya nin culus iyo maqal durdur bule maqal ma taqana maqal waxa la dhahaa magaalada inoo maqle waxa la yiraahdaa maqal waxa la yiraahdaa xaraha caruurta dhalanka yihiin iyo waxa la isku daro waa maqal ilmiisi yiris iyo maqal durdur bule macnaha inuu maqal waraabiyo wax weyn ka dhigaya oo argaya yarkan waraabiyo iyo nin wax qabad iska dhigaya waxay leedahay Taajiro waniyo martabad iyo maamuuska sheegtay macna waxaan lahayn iyo maqal baan durduraa mas'uul kuma ahatide waxaad maanta qabtay waxay leedahay manfac waxaan lahayn iyo maqal baan durduraa mas'uul kuma ahatide waxaad maanta qabtay macnaha ay sheeg leedahay markaas waxaan aqay wuxuu leeyahay waqtiga iyo maalmuhu miriq bay ku dhaafaan sikinkii moodii minid kaman xisaabsha calaashan mashquul ma waliya khiyaaliya ma waliya ciyaari ma aqaan khiyaaliga hablaha meesha joogay media xareed iyo manka wax la moodana ani maalin lil magacay ku qarwaan meeshan imaado meesha aan joogay malyan baatimaado ana mooga jeceliyo ana maalin kulaniyo ana maaganaayo muran iyo dagaal bay meesha ka ciyaano militariga ma kala celin kara bule wax kale oo kala celin karma booliska markii uu dhamaatay hawsha isku dhamaatay hay markaas ay leedahay waxay leeyahay ninkayga magac macnaha weyn maduucaad qabtaan kugu maagay inaan yahay sawaad sixirto waa baan ku tagtiganahay bule waa ku xirana ha marka ka marayso iyo waxay tiri war hadaladan macnaha yar igu miisi wiiliyo anu maanan garanine ma wax waalan baa tahay maantaan isbaranay goormuu dareenkiyo muhashada jacaylkiyo kugu maaxay caasho midna waa su'aale waa adigan mashquule halgamaamiyada من تدي وحرني مضان ومستهم مذوي كوا مريع عدوي من نفتيه رات هاي بيتر سؤال وين صاحب كاس مودي من ميرفق بدون هاي ما لها بكسرت من مذونكم تشربوا هالجماعنا ما أنت مسارد أي مبارك كذيين أنا قاعد معدي مدحتوي ذي كله هي مرقان كابين هرن مردوف قاضهم عناي ما الله سبحان الله بيكسل وكان مدح حديقة كفر يبي أمي الله استغفر يا بني ما لها بكسرت من مذونكم تشربوا ما لها بكسرت من مذونكم تشربوا ما أنت مسارد أي مبارك كذيين أنا قاعد معدي مدحتوي ذي كله مرقان كابين هرن مردوف قاضهم عناي ما الله سبحان الله بيكسل وكان مدح حديقة كفر يبي يوم مريم المذوق دول ويا هي أمي الله استغفر يا بني كاسيتير هاتان كو قرتay nin markaansan warkiisa marka qaadani maaye beentan aan nololooday mid kale tala doona mid sax way dhaqaaday kugaas alla ka madoobay murtida iyo heesa ruux soo mutaxana maqsinkan ku fulanayo nabool shit haye maqsinkan ku fulana ha haye ama madaxa ku fulanayo soo madaxa wuxuu ka soo qaaday maqsin waa qol okay alla ka madoobay murtida iyo heesa ruux soo mutaxana oo maqsinkan ku fulanayo taagiisa inuu wax walba oo wuxuu haystaa wanaagaha uu sheegay isaguna bal maxaa ka dhaxay muxuu sheegtay xusni mubarak oo waayaha riwaayada aniga waayay ma la ridayahay ma la soo isaguna waayaha ma la zanay wasaarada Itoobiya xilli gumeysiga xukuumadda gumeysiga oo waayaha isaguna dhintay uu sheegay wuxuu leeyahay aniga waa kan madax dhiig ka furay marka riwaayadaas oo kale yaan tusaale soo qaadanayna horta bal clip yar oo riwaayada ka soo qaadanayna si aad iyadoo live loo sameeyay aad noola daawataan anigana abwaan Bashiirna idin la daawano bal clip yar aan ka soo qaadano
wari dhagayso Ha. hadalladaada micnaha yar ee igu miis wiiliyo aan u maana garanine ma wax waalan baa tahay maanta aan is aragnaye goormaa jaceelkiyo maashada dareenkiyo kugu maaxay caashaqa midna waa su'aale waa adigaan mashquulaye halgamaamiyaa tahay mintadii xurnimo doon gumaystaha madoo iyo kuwa marya cadowgiyo ma nafti huraa tahay malahaba ka saartaa mid madowna kuma jiro maalintii masaaridu ay mubaarak ridayeen intay taxriir isku weermurmayeen anigaa mucdi iyo madaxtooyada u dhacay mirqaankii habeen horena marduuf qaada hoon cunay malas baan la beegsado waa kan madaxa dhiig kaga furay iyagoo mariya madmadowii lahayn miyaa la isdafirayaa cajaa'ib wari dhagayso nin marqaasta warkiisa marna qaadan maaye beenta aad malmaluuqday mid kaleeta la raasaani waqtiga iga dhuminine alla kaa madabay murtida iyo heesaha qofku soo mutaxanaa maqsinkana qufulana bullshit waxaad daawanayseen qayb ka mid ah riwaayadaas oo kasoo maaxatay abwaan bashiir runtiina riwaayado fara badan iyo gabayo fara badan uu leeyahay abwaankana halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa abwaani channelkan dhowr marna muxuu ahaye sheeg halku dhigiisa waan la wadaagnay bal horta yoolka uu iibsanayay channelkan muxuu yahay waa su-aal fiican muhiim cabdiqadro channelka garashada sarreysa targetkiisa iyo yoolka uu higsanaya waxaa weeye inta caqliga soomaalidu foorro inaan hadallo ha caqliga soomaalidu intuu foorro inaan hadallo inta hormuudkeenu yahay heecayga maxaa la hormuudkeen intuu hormuudkeenoo yahay heeca haraaga heecay ha haraaga heecay haraaga Ha, haraaga haraaga fiican. ha haraaga badhi laakiin wuu jiraa ma heecay waa heecay ha wax jira waa heecay waa hadhaha gabayaba ku jirtaa dhowdaan iyo alla naxariista ay leeyihiin iyo hadraawiyo marka intuu hormuudkeenu uu yahay ninka haraaga uu hormuud inoo yahay ninkii hormuudnimada u qalmayna uu meesha dambe bulshada ka joogo inta caqliga soomaaligu foorro inta dana shisheeye u kala adeegeen u kala baxsanayno soomaaliya hadda dhulka soomaalidu ay leedahay qayb ka mid ah xorra xornimo ka jirtaa danaha soomaalida looguma adeego iyadoo xor ah sax malaha intii la haystay oo dhaantay waa sidii marka qarkood sax sababtoo danihii dadka soomaalida looguma adeego dana kala shisheeyaa lagu kala baritamaa ururada ka jiray ka dagaalamay islaamiyiinta sheegta danayo shisheeye kale iyu kala adeegaan oo ururo kale iyo shirkado kale qaar baa Ethiopia gacanta ku haysan jirtay waayihii hore qaar baa waxaa jirta diyaarad uga soo degay al-shabaab ay dhabo oo Eritrea keentay dhihi jiray Ethiopia ugu dambeyn ku cadaaday deewaal kala aamusan waa iska dhiil waxaan ha waa iska dhiil cadaan iyo madow baa lagu jiraa marka diyaaradda Ethiopia ku keentay ka dhageyso meel al-shabaab joogo waxay ku cadeynaysaa saameynta ay ku leeyihiin dawladaha shisheeye ma waan jiritaanka Soomaalida rabin mar rabeen wada magac dhabo taad Saalom soo qaatay dawladda hore Ethiopia bay ka jirtay xukuumadda Mooji iyo dawladda gacan saar ka dhaxeeya tii xilliga jirtay baan ka hadlayaa diyaaradda hubka ay degayso ruuxi taariikhda ay baa garanaya marka inta danaha Soomaalidu dadka Soomaalidu ay wadeegayaan danaha shay waan hadlaynaa inta Soomaalinimada ka soo laabanayso waan hadlaynaa si kasta waxaan ku hadlaynaa luqad kasta luqadda dadku ay fahmayaan baan kula hadlaynaa suugaan baan kula hadlaynaa أنا لو قدر بدل مكسر كله Soomaaliga laftirkiisan ka hadlaya ميا luqadda suugaanta macnaha laba kala qaadayo Soomaaligu luqada ma kala aha anu ma kala qaadayo mana doonayo inaan hadda hormuud noqdo jid ugu kala qaadayo lahjadaha xataa inaan oran qaab kasta oo dadku wax ku fahmayaan fahmi karaan yaan wax fahansiinayna gabayaan kula hadlaynaa maskaxdeena u baaraynaa aniguna waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed in nala garab istaagaan dhiirigelinta wax kala muhiim bartaadna geysaan uma istaageynaa dadka Soomaalidu meesha nageysaan ma istaagina marka yoolkan waxa weeye in Soomaalinimadu ka go'an tahay la helo hogaaminta Soomaaliduna ay noqdad u qalmay inay hogaamiyaan baan wadayna hadda alino way dhaweyto masiibooyin dadka Soomaaliyeed soo food saaray waxaan ilaahay inta ay naga koobo masiibooyinkii argagixisay ee ka dhacay magaalooyinka waaweyn aad channelkeena uga soo hadlaynay waa dhammaan tacsiin ku jiray wadageed marka insha Allah taala waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed hore u socda kor fiiriya waxa hoostiina yaala fiirinne waxa idin ka horeeya fiiriya ما شاء الله aad baad u mahadsantahay waxaan rajeynayaa inaa intaa garateen waxaan jecelnahay barnaamijkan silsilada ah oo taxano noqon doona qaybta inaan maanta kusoo koobno tan iyo kulantideena dambe barnaamijka xiga intaan dib ugu wada kulmi doono waa Bashiir Cabdiqaadir Koronto idin leh garashada sareysa ay bay ugu gargaarday
قبل بدونيموي godadnimo ninkeedii قبل بدونيموي ويكردي godadnin keedii intaasaa horta ani barashada xifdinteedii aan wada ilaa haddeertaan sidaa ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.